magaalada Dhuusamareeb waxaa qadkeeda si toos ah ugu jira wariyahayaga deegaankaasi Maxamed Tabane oo asagu inooga warrami doona xaaladihii ugu dambeeyay. Maxamed bay maqashaa? aad iyo aad xasan ugu maqlaa. bal waxaad nooga warbixisaa haatan xaaladda deegaankaasi Dhuusamareeb iyo waliba madaxweyne Xaaf goobta uu ku dambeeyay iyo waliba safarkiisa dhulka halka uu gaaray. xasan aad ma santahay madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa galabta gelinkii dambe maqribnimadii ka baxay caasimadda dawlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb. safar dhulka ayuu baxay waxa uu ku sii wajahayaa magaalada Gaalkacyo. caaw waxa uu ku sugan yahay deegaan lagu magacaabo Godin Labe oo u dhaxeeya Cadaado iyo sidoo kale magaalada Dhuusamareeb ee magaalada madaxda Galmudug. xasan magaalada Dhuusamareeb hadaan u soo noqono caaw jawigeeda uu ka duwan yahay jawadii horeeto waxaana ka jira guux siyaasadeed. waxa kulamo imika u soconaya madaxa xukuumadda iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. walow warar soo sheegayaan in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya wafdi hordhac ay ku soo wajahayeen magaalada Dhuusamareeb isla markaana bari gelinkii dambe laga yaabo inuu ku soo dogaa ama isla bari subaxii. wararka sidoo kale safarka madaxweynaha ee dhulka ayaa caawa waxa uu ku sugan yahay deegaanka Godin Labe oo qiyaastii 50 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Dhuusamareeb. waxa uu u dhaxeeyaa Cadaado iyo sidoo kale Dhuusamareeb. magaalada caawa jawigeeda waxa uu ka duwan yahay jawiyadii hore u soo maray magaalada Dhuusamareeb. waxaana ka jira guux siyaasadeed oo u dhaxeeya wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxda al-sunna wal jamaa iyo sidoo kale madaxa xukuumadda dawlad goboleedka Galmudug. waxa caawa kulamo gooni u soconaya madaxa xukuumadda iyo sidoo kale gudoomiyaha guud al-sunna wal jamaa iyo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb. waxaana soo socda sida wararka ay sheegayaan ama wafdi hordhac ay soo gaari doonaan magaalada Dhuusamareeb ka oo garwadeen ka yahay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo sheegay ama dawladda Soomaaliya oo sheegtay in bisha 7 afarteeda ay doorasho ka dhici doonto deegaanada dawlad goboleedka Galmudug. waa tahay Maxamed maxay tahay sababta uu safarka dhulka madaxweynuhu ugu safray ayadoo la sheegay in ay wadeen ciidamo ama ba ay si galbinayeen ciidamo ka yimaadeen dhinaca Gaalkacyo. xasan aad ma santahay madaxweynaha sababta uu tagay magaalada ayaa waxa lagu sheegay in wada hadallo u dhaxeeyay madaxweynaha iyo sidoo kale madaxda al-sunna oo awalkii hore isku dhinaca ay kana soo horjeeday madaxda dawladda Soomaaliya markii dambe madaxa xukuumadda iyo gudoomiyaha al-sunna wal jamaa ay ku biireen dawladda Soomaaliya. madaxweynaha waan ayaa kulamo gooniya ayaa magaalada Dhuusamareeb loogu yeeray oo ka diiday inuu kulamada ka qayb galo. markii lagu soo wargeliyay in ra'iisul wasaaraha uu ku soo wajahayo wafdi hordhac inay soo gaari doonaan biri subaxdii magaalada ayuu waxa uu damcay inuu isaga baxo magaalada uu ku guuleystay oo safar dhulka ayuu ku baxay maadaama garoonka ilaaliyaan ciidamo ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug gaar ahaan ciidamada booliska al-sunna wal jamaa. waxaan madaxweynaha uu safarka ugu baxay kulamo oo dhaqameedyo ama ergey ka socota dhinaca madaxa xukuumadda iyo sidoo kale madaxweyne Xaaf ay kulamo qaateen isla markaana ay shaqabsadeen in ka badan 24 saacadood in ay jawaab degdeg ka soo bixi doonaan. 24 saac markay dhamaadeen lagu soo wargeliyay in madaxweynaha aan ilaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ku soo wajahayo magaalada oo isaga baxay isla markaana safar dhulka uu ku aaday magaalada Gaalkacyo. waa tahay wada hadallada uga soconaya Dhuusamareeb madaxda dawladda federaalka Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha iyo maamulka ahlu sunna oo hogaaminaya Sheekh Shaakir maxay ku saabsan yihiin ma waxay la xiriiraan waqtiga doorashada loo asteeyay mise waxyaabo kale oo arrimaha coladaha beelaha isku dagaalay deegaanada. muqtaar waad ma santahay inta badan dadka siyaasiyiinta waxay sheegeen in kulanka ama wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Sabriye oo ku soo gaaray Dhuusamareeb iyo wasiir dawladda iyo xildhibaanada ay tahay in laga dhaadhiciyo madaxda al-sunna iyo sidoo kale madaxweyne Xaaf in doorashada ay dhici doonto bisha 7 afarteeda ay hore u ilaamisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana warqad oo ka diidayo ama warqad lagu cadeynayo in doorashada
xilligaasi dhacaysa ay ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha gudaha ay ka diideen maamulka galmudug oo markaas midaysnaa oo al-sunna iyo galmudug isku ah oo dhuusmareeb ku sugnaa walow markii dambe ay kala jabaan madaxda qaar sida madaxa xukuumadda iyo gudoomiyaha al-sunna wal jamaaca ay qaabileen wafdiga ka socday wasaaradda arrimaha gudaha isla markaana ay oggolaadeen in doorashada ay dhici doonto bisha 7 afarteeda madaxweyne xaafna wuxuu ku adkaystay in waqti oo in ka badan 2 sano uu harsay isla markaana uu yahay madaxweynaha sharciga waxa uu sheegay inuu ka arrimi doono qaybo ka tirsan mudug iyo sidoo kale gobolka galguduud qaybtood oo sheegay haddii doorasho ka dhacdo dhuusamareeb ama cadaado oo sameeyo doono maamul oo dabcan warar hoose oo keenay xafiiska madaxweynaha ay sheegayaan in maamul loo magac bixiyay ama loo magac bixi doono mudug state oo sameeyo doono madaxweyne xaaf waa tahay ugu dambeystii shirarka iyo kulamada haatan ka soconaya deegaanka aad ku sugan tahay ma waxay la xiriiraan ka bixitaankii madaxweynaha mise waa kuwa iska caadiya muqtaar kulamada caawa ka soconaya dhuusamareeb waxa ay la xiriiraan inta badan hadalhaynta soo dhaweynta ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo kulamadii caadiga ay yeelanayeen wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale madaxa al-sunna wal jamaaca ama gudoomiyaha al-sunna wal jamaaca iyo sidoo kale madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug oo intaba habeeno badan ama in ka badan 2 habeen shirar toos ugu soconayay xarunta madaxtooyada aan iraade oo ka tagay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ay shirar toos ugu soconayaan kuwa oo looga areysanayo arrimaha doorashooyinka dhici doona bisha in ugu soo aadan iyo sidoo kale soo dhaweynta madaxweyne aan iraade ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali khayre waa tahay aad iyo aad u mahadsan tahay maxamed daawadayaal kaasi wuxuu ahaa wariyaha iyaga deegaanka ama magaalada dhuusamareeb oo si toos ugu jiray qadka magaalada dhuusamareeb isla markaana inooga warbixinayay xaaladihii ugu dambeeyay ee magaaladaasi iyo waliba madaxweynaha maamulka galmudug oo asagu ka baxay galabta isagoo isticmaalay safar dhulka ah arrimo la xiriira khilaafka sii xoogeysanaya oo u dhaxeeya maamulkiisa iyo waliba dowladda federaalka